Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga Ogaalka Dunida. Xabsiga Sayid Naya waxa uu ku yaalaa meel u dhow caasimadda Dimashq ee dalka Suuriya. Waxaa la dhisay bartamihii 1980-meeyadii markii uu xukunka ahaa xukun militari. Xabsigana waxa uu markii hore u ekaa xarun militari, balse waxaa si qarsoodi ah loogu beddelay xarun lagu ciqaabo dadka siyaasadda ka aragtida duwan dowladda. Sababta loo adeegsaday xabsigan waxa uu caan ku noqday xadgudubyo ba'an oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Waxaa lagu xiray kumanaan Suuriyaan ah oo loogu eedeeyay in ay ka soo horjeedaan dowladda, gaar ahaan intii socday kacdoonkii shacabka Suuriya ee 2011-tii. Dadka la geeyay Sayid Naya inta badan maxkamad lama soo taago. Dad badan xabsigan ayay uga dhinteen iyaga oo aanan wax eed ah lagu caddayn. Ciqaabta ka jirta Sayid Naya waxa uu noqday meel dadka lagu jirdilo, laguna ciqaabo, laguna dili karo si aanan cidna u ogaan. Maxaabiista waxaa la mariyay jirdil laga bilaabo gaajo iyo cunto la'aan ilaa garaac joogto ah iyo kufsi. Waxaa la sheegay in qaar ka mid ah maxaabiista lagu qasbay in ay cunaan hilib saaxiibadooda oo dhintay. Sayid Naya waxa uu ahaa mid ka mid ah meelaha ugu qarsoon ee dowladda Suuriya gacanta ku haysay dhammaan dhaqaalaha lagu maamulo. Waxaa si gaar ah ugu ammaan jiray ciidanka militariga, xitaa shaqaalaha ka howlgala aysan heli karin warbixino dhammaystiran oo ku saabsan waxa dhabta ah ee ka dhacaya gudaha xabsiga. Markhaatiyaal naxdin leh. Dadka badani waxa ay sheegeen in Sayid Naya uu ahaa xabaal nool oo dadka lagu aasayo iyaga oo nool. Warbixino caalami ah sida kuwa Amnesty International ayaa shaaciyay in ilaa 13,000 oo maxbuus lagu dilay gudaha Sayid Naya intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2015. Waxaa intaa dheeraa in dad badan oo kale lagu waayay gudaha xabsiga oo aanan la ogeyn meel ay jaan iyo cirib ay dhigeen. Ujeeddada xukuumadda dowladda Bashar al-Assad waxay u isticmaashay Sayid Naya si ay u caburiso mucaaradka. Waxaa lagu beegsaday dad ka soo jeeda reer Aleppo, Amadara iyo magaalooyin kale oo kacdoonka ka bilowday. Ujeeddadu waxay ahayd in ay muujiyaan cabsida iyo awoodda dowladda. Warbaahinta caalamka. Inkastoo dowladda Suuriya isku dayday in ay qariso waxa ka socda gudaha Sayid Naya, haddana warbaahinta caalamka, gaar ahaan BBC iyo Amnesty International, waxa ay soo saareen warbixino iyo sawirro 3D ah oo lagu muujinayo sida gudaha xabsiga uu u eg yahay iyo waxa ka dhacaya. Booliiska caalamka. Warbixinadaas waxa ay keeneen in Qaramada Midoobay iyo dalal badan ay cadaadis saaraan dowladda Suuriya si ay loo joojiyo tacaddiyo ka socda. Waxaa la dalbaday in baaritaan madax-bannaani lagu sameeyo Sayid Naya, balse dowladda Suuriya way diiday in ay oggolaato. Sababta loo xiray ama loo furay mar kale. Waxaa lagu amray in 2023 dowladda Suuriya ay si qarsoodi ah u xirto qaybo ka mid ah xabsiga Sayid Naya, kadibna cadaadiska caalami ah iyo markii uu hoos u dhacay kacdoonkii gudaha dalka. Si kastaba
dowladda ma shaacinin in si rasmi ah xabsiga loo xiray. Qaar kale waxa ay sheegayaan in Sayid Nia loo furay ujeedo cusub, balse aanan la ogeyn waxa hadda ku socdo. Xabsiga Sayid Nia waxa uu u taagan yahay cabsi, murugo iyo xasuuso xanuun badan oo shacabka Syria ay weligood xasuusan doonaan. Xabsigii ugu cabsida badnaa ee lagu jirdilo qof bini'aadam ah iyada oo uusan wax dembi aysan caddaynaynin. Inkasta oo aanan si rasmi ah loo xirin, haddana waa astaan sida awoodda xad-dhaafka loogu adeegsaday shacabka si loo cabsi geliyo. Haddii aad nala soo gaartay, ha naga iloowin inaad noo like gareeto, subscribe inoo saarto, dhacdooyinka cusub ay kuu soo gaaraan gambaleelka furto. Waa inoo iyo sheeko xiise leh. Goodbye.